السلام عليكم خيارتيدا maanta waxaan idin wadaa xikmado aad u cajiib badan. aan soo qaato xikmadda koowaad. beri ayaa nin dhakhtar ah wuxuu yidhi daawada ugu wanaagsan dadka waa jacayl. qof ayaa weydiiyey ka waran haddii uusan shaqayn. dhakhtarkii ayaa dhoola cadeeyey wuxuu yidhi badso isticmaalka daawadan kuu sheegay. xikmadda labaad. wiil ayaa hooyadii weydiiyey sidee baan u heli doonaa haweeney wanaagsan. hooyadii ayaa ugu jawaabtay ha ka welwelin helidda haweeney wanaagsan, xoogga saar sidii aad u noqon lahayd nin wanaagsan. xikmadda saddexaad. nin ayaa soo galay farmashi wuxuu ka cabanayay stress badan, welwel, xanaaq, hurdo la'aan iyo cabsi. ninkii farmashiga joogay ayaa ugu jawaabay waxaa u baahan tahay fitamiin diin ah si waxa kuu haya ay kaaga baxaan. marka alla ku xirnow salaada iyo ducadana badi. xikmadda afaraad. wiil dhalinyaro ah ayaa nin caaqila weydiiyey sidee baan adduunka isbeddel ugu samayn karaa. caaqilkii ayaa ugu jawaabay haddii aad rabto inaad adduunka isbeddel ku samayso samee inta aad keligaa tahay, sababtoo ah guurka kadib xitaa tv-ga ma beddeli karaysid. xikmadda shanaad. wiil dhalinyaro ah ayaa su'aalay oday weyn wuxuuna yidhi waa maxay romansi. odaygii ayaa ugu jawaabay romansi waa inaad reer yeelato, mas-uuliyaddeedana aad qaaddo, kadibna aad reerkaaga u shaqaysato.